gudoomiyaha degmada Balanbale Cabdicasiis Xaashi Cali Iraad xildhibaan Mawlid Sheekh Cali Taaliil oo ka mid ah baarlamaanka Galmudug xubno ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Balanbale iyo mas'uuliyiin kale ayaa si wada jir ah uga xarag jaray deegaanka ka xandhaale ee galbeedka degmada Balanbale xarunta caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka ka xandhaale oo isku tashi bulsho ay ku dhiseen bulshada deegaankaasi ugu horeyntii gudoomiyaha deegaanka ka xandhaale Cabdishakuur Xasan Caynab iyo nabadoon Cabdirasaaq Xuseen Faarax oo goobta ka hadlay ayaa u mahadceliyay bulshada deegaanka ka xandhaale sida ay isugu howleen hirgelinta xarunta hooyada iyo dhallaanka deegaanka oo baahi weyn loo qabay sidoo kalena u mahadceliyay qurbjoogta deegaanka ka xandhaale anigoo Cabdishakuur Xasan Caynab oo gudoomiyihii deegaankan ka xandhaale ah waxaan soo dhaweynayaa wufuudan dhamaanteed waxaan ku soo dhaweynayaa deegaanka ka xandhaale baan ku soo dhaweynayaa ama markaa ka bacdigeedna waxaan ku soo dhaweynayaa MCH kan cusub ee la dhisay ee la doonayo in la xarig jaro ee la dhaqan geliyo waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha degmada xildhibaanada odayaasha iyo nabadoonnada aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaynaa deegaanka waxa ka muuqda oo ka mid yahay MCH kan hadda aan joogno masaajidka madrasada ceelka iyo hawlo kaleeto oo aan u bognay oo ka muuqda aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa dadkii diasparaha ahaa oo arintaas sameeyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa ku mahadsan ayagaana ugu mahadcelinaynaa waxaan hadda hor joognaa waad arkaysaan MCH badan baan anigu tagay suu u dhisan yahay iyo sharaftiisa iyo qiimihiisa kalena maba aragba saas darteed masaajidkan soo marnay madrasadan aragnay ceelkan horay hadda dhowr jeer u imid wax guulaho weyn baa meeshaas ka muuqda Ilaahay mahadiha ka gaarta adinka ku mahadsan dadka waxa wax tarahaya oo wax u qabanaya waa adinka iyo dadka ka midka ah waxa aad gacan dhaada ka qabateena aakhirana waa in ku filanta adduunkana waa in ku filanta ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Balanbale Cabdicasiis Xaashi Cali Iraad xildhibaan Mawlid Sheekh Cali Taaliil oo ka mid ah baarlamaanka Galmudug iyo xildhibaan Deeq Cali Jaamac oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Balanbale ayaa dhankooda mahadcelin ballaaran u jeediyay qurbjoogta deegaanka ka xandhaale oo hirgeliyay dhismaha xarunta hooyada iyo dhallaanka deegaanka ka xandhaale iyagoo dhanka kale wasaaradda caafimaadka Galmudug ugu baaqay in xaruntan sida ugu dhaqsiyaha badan u soo gaarsiiyaan adeegyadii caafimaad ee deegaanka ka xandhaale aad iyo aad waxay noogu tahay maanta farxad weyn inaan joogno daafurka MCH ka deegaanka ka xandhaale oo muddo bil iyo wax ku siman ah ka hor halkaan aan ka dhignay oo shaqadiisii laga bilaabay farxad gooniyahay noo tahay waa barwaaqo iyo deegaanka horumar ku soo kordhay waxaan halkaan uga mahadcelinayaa qurbjoogtii deegaanka ka xandhaale oo maalkooda iyo maskaxdooda galshiidee meeshaan quruxda badan oo maanta inta lagu naaloonhayo oo awal madrasada dhisay masaajidka dhisay ceel biyoodka dhammaan mashaariicda deegaanka ka xandhaale ka dhisan waxaa lafdhabar u ahaa oo fuliyay deegaankan qurbjoogta ka soo jeeda rag iyo dumarba sidoo kale halkan waxaan baaqa u dirayaa wasaaradda caafimaadka Galmudug iyo midda federaalka MCH kan wuxuu ahaa shaqo dawlo inay qabato dawlo inay dhistay ahayd hadeer dadkii deegaanka oo tashaday baa dhistay maadaama ay dhisteen waxaan si cod dheer ku leenahay oo codsanaynaa wasaaradda caafimaadka Galmudug inay qalabayntii iyo shaqo gelintii MCH kan inay la wareegto waa xarun dawlo shacabku waa dhistay mar haday dhisteenna waxaan in ka rabnaa inaad si degdeg ah ula wareegtaan MCH ka xandhaale oo ah MCH ay u dhisteen dadka deegaanka waxaan leenahay aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaynaa wax qabadka ballaaran oo deegaanka qabateen waxaan kaloo rabnaa inaan u mahadcelino gabdho iyo wiilal dadkii ayaguna qurbjoogta ahaa oo barnaamijkan ka qayb qaatay waxaan rabaa inaan baaq u diro dhammaan cid kasta oo MCH kan gacan ka geysan karta inuu adeeg hay'adaha samafalka deeq-bixiyaasha iyo cid kasta oo Cabdisayid Maxamuud Cabdisayid Jookar warbaahinta qaranka Balanbale